waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan nahay waanada macalinka bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan salaamayaa ardayda iyo ka qaybgalayaasha xiisadan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa anigoo cabdiraxmaan xasan muuse oo ku caandhe ama ku magac dheer cabdiraxmaan hindi iskuulka xiisadan ka bixinaana waxa weeyaan iskuulka Future Secondary School senior classka weeye foonfoorada waxaynu maraynay chapterkeena shanaad oo inoo ahaa complex numberka oo ka qaadanna qaybtiisa 7 5.7 baynu maraynaa maanta oo ah qaybtiisa 7 oo loo yaqaan Demophilus theorem baa habka Demophilus theorem kuna waa saddex qaybood oo hoos iman doona secondary-ga marka dhiganayno waa qayb loo yaqaan poweriska qayb loo yaqaan poweriska iyo qayb loo yaqaan square rootska oo iyadoo qayb noqonaysa iyo qaybta saddexaad ee noqonaysa cubic roots saddexda qaybood ka hadlayaan magacan loo yaqaan Demophilus theorem ama habka Demophilus soo saaray ama qawaaniintu dejiyay xisaabta ka qayb qaatay habka loo yaqaan Demophilus theorem kani waxa ku qoran secondary-ga poweriska iyo square rootska iyo cubic rootska waana chapter 5 qaybta u dambeysay weeyaan qaybaha u dambeeyay weeye secondary-ga qaybta form 4ka waxaan ka marnaa 5.7 oo noqonaysa chapter-kii shanaad qaybtiisa 7 habkan hore soo qaadanay wuxuu ahaa if a side is equal to haday noqonaysa sado r into cos theta plus I sin theta oo qows lagu soo xiray habka waxaan u naqaanay maalinta hore soo dhiganay qaacidada waxaan soo qaadanay iyadoo ah inay tahay polar form maanta waxaan soo kordhinay habkan soo kordhiyay hab powers lagu shaqeynayo powerku wuxuu doona ha noqdo sar power 4 sar power 6 sar power any power kasta soo gala meeshan waxa la adeegsan karaa sar power n into r oo radius-kiya oo ku jibaaran powerka cos into cos theta into cos n times theta looranaya oo n taan ku qoray khadka buluuga waa powerkii uu taaganti theta wada lagu sii dhufanaya plus bin orana I sin n times cos n times theta intaas waa powerkeeni tanna waxa ka shan haysano habkaana waxa loo yaqaan qaacidada in soo qaadanay maanta in dhiganayno waxa loo yaqaan in a power form qaabka power form ka weey in maanta soo kordhinay xisaabta qaabtii hore wuxuu ahaa qaabkii loo yaqaanay rectangle in polar formka maanta laakiin waxaan qaadanaa qayb kale oo cusub oo loo yaqaan power form oo soo kordhinay marka oo qaabkan loo yaqaan Demophilus theorem ku barto ka bilaamayo waa qayb ka poweriska example 1 baynu maraynaa maanta oo 10 kana Demophilus theorem-ka wuxuu leeyahay saddex waxay noo leegtay 1 minus I bay noo leegtay saddeeno marka wuxuu ku leeyahay find soo saar sar power 4 baa la raadinayaa oo maqanaysana sar power 1 tan way intan waa sar power 1 waxay u dhigantaa 1 minus I ayaan haysanaa waxaan raadinaa sar power 4 wuxuu ku leeyahay laba su'aalood waliba ka raadi laba hab adigoo maraya in rectangular form adigoo adeegsanaya in rectangular form iyo adigoo adeegsanaya polar form marka laba example bay noqon doontaa mar ay ku shaqeynaa rectangular formka iyo mar ay ku shaqeynaa polar formka labadoo waxa laga rabaa markaan isticmaalno equation in labada qaacidaba ay soo saaraan same answer marka waxaan ka bilaabi doonaa hadii la helaado example keena haysano solution man ka bilaabina waxaan leeyahay solution keena waxaan haysanaa sad is equal to sad waxaan haystaa 1 minus I halkaas aan haysanaa please 1 minus I ayaan haysanaa 1 minus I da waxaan noo diray sad power form soo saaro waliba adigoo adeegsanaya bukuri in rectangular form maxaynu adeegsanaa in rectangular form baan adeegsanayna habka loo yaqaan rectangular-ka maalinta hore waxaan soo qaadanay rectangular form-ka iyo waxa isku mid ahaa standard form waxa loo yaqaan standard form ayaa isku mid noqonayay
labadaas waa isku mid haddii aad standard formka isticmaal iyo haddii aad rectangular form isticmaal just the same way marka waxaan oranaa sar power 1 baa intan u dhiganta sar power 1 baa intan u dhiganta maxaynu sameynaa waxaan la weydiiyay questionkeena sar power 4 ayaa la weydiiyay questionkeena maxaa la weydiiyay sar power 4 oo waxaan haysanaa sar si wato 1 minus I baan haysanaa waxa noo diray sar power 4 soo saar waana habka loo yaqaano Demophorus theorem kanu adeegsanaynaa qaybta rectangular formka waxaan oranaa solutionkeena markaan bilaabayno waxaan leeyahay sar power 4 ayaa waxay u dhigantaa sar times sad times sad times sad times sad macni sar power 4 waxay ka timid afar sar oo la isku dhuftay weey sar power 4 maxay ka timid afar sar oo la isku dhuftay oo xeerkii indices ka jibaarnay dhigan jirnay markaan haysanaa x power a times x power a times x power a times x power a inta markaan haysano afar x marka la isku dhufanayo isku base oo same basis oo power kooda waxa la sameyn jiray waa la isu geyn jiray waxaan jiray x mid soo qaada jibaariska waa la isu geynayaa afar waxaan isu geynayaa maxay afar a ayaan isu geynayaa marka waxa loo jeedaa hadii basesku isku mid yihiin powerada waa la isu geeyaa habkeeni hore in soo qaadanay markaan marna for1ka ama indexeska powerska marka jibaarada isku dhufsan yihiin ee same base yihiin baseska mid baa la soo qaadan jiray powerskana waa la isu geyn jiray hadaba kana waxa loo diray sar power 4 waxay ka timid afar sar oo la isku dhuftay marka waxaan oranayaa sar power 4 waxay soo baxaysaa sadii koowaad maxay ahaydeen waxay ahayd 1 minus I ayaa lagu dhuftay 1 minus I times 1 minus I times 1 minus I ayaa isku dhufanaya waxaan isku dhufanayaa afar jeer oo min 1 minus I oo halka sad ayaa u dhigmaysa 1 minus I marka laba kamid isku dhufo waxa la sar power 2 maxay noqonaysaa bal sar power 2 soo saar labadaas isku dhufanaya labada haddaan isku dhufto sar power 2 baan helaya marka waxaan oranayaa sar power 2 helo waa 1 minus I lagu dhuftay 1 minus I labadaas isku dhufanaya saanu helo sar power 2 marka sar power 2 helo waxa ay fududaanaysaa inaan soo saari karo sar power 4 waxaan leeyahay sar power 2 waxay soo baxaysaa sar power 2 waxay soo baxaysaa 1 times 1 baa la oranayaa waa binomialkii waa 1 times I waa 1 I x minus I times 1 1 minus I minus I times minus I waa plus I square baa la raacinaya oo hadii I times I la yiraahdo waa I square minus times minus na waa plus arday maalintu dambeysay waxaan soo qaadanay 10kii ahaa I square ayaa wuxuu u dhigmayay -1 marka complex marnay qaybtii base u horeysay waxaan soo qaadanay I square ina maxay u dhiganto -1 marka halkay taala I square ayaa waxaan ku bedelanayaa direct substitution -1 ku bedelo waxaan leeyahay sad square ayaa waxay u dhigantaa 1 minus I minus I minus 1 oo halka ay taalo I square ayaa waxaan ku bedelanayaa -1 oo intaan ku qoray qalinka buluuga waxaan ku bedeshaa -1 oo I square ba maxay u dhigantaa -1 u dhigantaa marka waxaan sameeynaa 1ka positive ka iyo 1ka minus ka wata waa cancellation waa isla bixin labadaas marka waxa oranayaa sad square ayaa inoo soo baxaysa labadana way isu geesmayaan oo kana waa -1I kana waa -1I waa same symbols waa isku calaamad waxay noqonaysaa -2I marka sad square ayaa intaas inoo noqonaysa inta ayaa sad square inoo ah marka haddii sad square la soo baxay waxa ii fudud inaan soo saari karo maxay inaan soo saari karo sad power 4 sad power 4 in raadin karo ayaa ii fududaanaysa maadaama aan helay sad square inta inoo soo baxday sad power 4 maxay noqonaysaa macni weey sad power 4 waxay u dhigmaysaa sad square lagu dhuftay sad square marka laba sad square isku dhufto ayay sad power 4 noqonaysaa oo hadii labada base isku dhufsanaa mid soo qaato labada powerna waa la isu geyn jiray waxay noqon jirtay power 4 marka waxaan leeyahay sad power 4 ayaa waxay soo baxaysaa wariya arday sad square maxay u dhimisay sad square waxay u dhimisaa -2I ayaa ku bedelanaya ay taala sad square waxaan leeyahay -2I lagu dhuftay -2I
labadaas isku dhufanaya oo -2i gan wuxuu ka yimid sad square ayaa waxay u dhigantaa -2i marka laba sad square baa isku dhufanaya oo inta u dhigmaya waxay noo soo bixi doona jawaabteeni waxay noo soo bixi doona sad power 4 waxay noqonaysaa -2i times -2i baa la oranaya haddii aan minus ku dhufto waxa soo baxaya waa maxay waa positive marka waxaad oranaysaa halka number balaha soo baxaya marka waxay noqonaysaa 2 times 2 waa 4 i times i na waa i square waanaga hore soo qaadanay halka i square soo gasho waxa lagu bedelanayaa maxay -1 halka i square ay soo gashay -1 ku bedelo waxaan oranayaa sad power 4 ayaa inoo leeg 4 into 1 oranaya halka oo waxaan ku bedelayaa i square ka -1 baan ku bedelanayaa marka waxay noqonaysaa 4 lagu dhuftay -1 oo u dhigma i square kii waxaad leedahay sad power 4 ayaa waxay soo baxaysaa maxay 4 times -1 waa -4 su'aashaas waxay noqonaysaa sad power 4 ayaa inta inoo soo baxaysa sad power 4 baa inta inoo soo baxaysa markaynu adeegsanay maxay habkii loo yaqaanay rectangular form habkii loo yaqaanay rectangular formka markaynu adeegsanay i sad power 4 waxaynu helnay answerka inuu inoo soo baxo -4 haddaynu ku yara celino haddaba waxaynu qaadanaa habka loo yaqaan De Moivre's theorem laba qaacido inoo qoran meeshan qaacidada hore waa qaacidada head polar formka qaacidadan labaad maanta inoo qorana waa taa De Moivre's theorem ka bilaamayo wali waa habka u qoran power formska habka powerka u qoran weey wuxuu ku leeyahay example 1 sada waxaan haysanaa 1 - i baan haystaa waxa la ii diray find sad power 4 wali wuxuu ku in laba hab adeegso in waxa isticmaalaya in two methods habka labaad wuxuu noqonayaa habka koobaad rectangular form adeegsan ku habka loo yaqaano rectangular formka habka labaadna wuxuu noqonayaa inagu adeegsanna polar formka imaka waxaan ku bilaabanaa example keena solution waxaan haystaa sad equal to 1 - i waxa la ii diray sad power 4 wali waxaan adeegsanayaa rectangular form waxaan rectangular form marka la adeegsanayo waxa la macnaa habkii loo yaqaan standard formka waxaan sad power 4 waxa lagu helayaa afar sad oo la isku dhuftay weey oo halka sad wuxuu u dhigmayaa 1 - i ayuu u dhigmayaa marka afar sad baan isku dhufanayaa waxa loo jeedaa haddii kan uu baawaroon yahay kana uu baawaroon yahay kana baawaroon afar base isku dhufsan oo isku mid baa laga soo qaadan jiray afarta baawarna waa la isu geyn jiray marka way isu dhigmayaan marka sad power 4 waxa u dhigmaysaa 1 - i times 1 - i times 1 - i times 1 - i afar baan isku dhufanayaa jeer oo mid kasta uu u dhigmayo sad baawaronkii hadda waxaan oranaa sad power 4 san u helno sad power 2 la soo bax sad power 2 marka raadinayo waxaan isku dhufanayaa laba sad oo kana waa sad qaybtana sad boorganta marka sad koobaad waxay ahayd 1 - i tii kale waxay ahayd 1 - i marka intan aan isku dhufto intan baa inoo soo baxday oo 1 kan baa 1 kan lagu dhufanayaa 1 kan waxa ku dhufanaysaa i-dan haddana i times -1 kan waxa soo baxay -i times -i waa plus i square halka ay taala i square ku ayaan waxaan ku bedelanayaa -1 labada markaa way iskoosan doonaan labadaas way isku geesmayaan markaa sad square waxa u dhigantaa -2i markaa saan u helo sad power 4 waxaan oranaynaa laba sad square baan isku dhufanayaa halkii sad square wuxuu dhigmayaa -2i buu dhigmayaa kii kalena -2i buu dhigmayaa labadan markaan isku dhufanno waxa soo baxay plus 4i square ayaa inoo soo baxaya halka i square taalana -1 ku bedelo marka -1 aan ku dhufto 4ka waxa inoo soo bixi doona -4 oo markaa sad power 4 waxay u dhigantaa -4 buu dhigmaysaa habkan waxa loo yaqaanaa rectangular form marka waxa naga rabaa labadan hab oo ina siiyay polar formka iyo rectangular formka inay jawaabtu soo baxdo maxay soo baxdo -4 soo baxdo marka qaybta labaad bida ayaan bilaabinaa imaka qaybta labaad bida wuxuu inoo diray example keena inaynu adeegsano in polar form inaan ku shaqeyno habka loo yaqaano polar form polar formka marka la adeegsanayo please waxa laga rabaa dariiqada polar formka waxay la ansar tahay dariiqadii ahayd rectangular formka marka hore waxaan haysanaa sad baan haystaa marka u horeysa halkii horeysa ku noqonaya example keena sad baan haystaa oo sad waxay u dhigmaysaa 1 - i intaasan qoraya waxaan leeyahay sad waxay noqonaysaa 1 - i bay noqonaysaa inta markaan haysta please
waxaan dib ugu noqonnaa qaacidadeen ahayn r maxaa lagu heli jiray radiuska waxaa lagu heli jiray a squared plus b squared oo xididka laga saaray waa barta ka soo bilownay ayaamii hore kombalagaska r waxaa lagu helaa radiusa a squared plus b squared square root binary oo labadan xaraf waxay ka yimaadeen waxaan hore soo qaadanay sadeen inay u dhigmisay a plus bi markaan dhigan jirnay kombalagaska equationada u horeeyay linearka ahaa waxaan soo qaadanay sadhu in ahay a plus bi numberkaas uu ahaa horgalaha waa real numberkii waa real number buu ahaa kaas real numbers buu ahaa real numberku wali wuxuu ku jiifay x axis-ka waxay noqonaysaa x axis-ka ayuu noqonayay kana waa coefficient laakiin tan waxay noqonaysaa imaginary unit bay noqonaysaa imaginary units wali waxay ku fadhidaa y axis-ka ayay noqonaysaa marka wanaga hore soo qaadanay eedan haddii 0 noqoto a is equal to 0 haddii eedan 0 ay ka noqoto waxa soo baxaya bi aasna waxay noqonaysaa pure compalagas ay noqonaysaa taasina pure compalagas haddii laakiin biidu ka noqoto 0 waxay noo soo baxaya ee kaliya eeda kaliya waxay soo baxaysaa inay noqoto maxay real number real number marka ayaamii hore waxaan soo dhiganay halka ayaan maraynay haddaba maanta formkan markay u qoran tahay waa formkan eedeen maanta waa imisa waa 1 waa numberka barta eeda yaade biidina halkaas ay noqonaysaa horgalaha ku jira oo waxay noqonaysaa b si wato -1 bay noqonaysaa oo waa horgalaha ayda 1 -1 ba ka horeeyay marka waxaan raadinayaa rt waxay noqonaysaa r si wato waa 1 squared plus -1 laba jibaaran oo xididka laga saarado oranaysaa rt waxay noo soo baxaysaa 1 hadii la laba jibaaro waa imisa waa 1 -1 laba jibaar waa plus 1 ayay square rooted labada number way isu geesmayaan labadu waa positive waxaan haystaa r si wato waxay noo soo baxaya radical 2 this is radius kaas wuxuu noqonayaa radius kaas waa radius keeni ayuu noqonaysaa artaas oo radical form bay noo gashay waxay noogu xiga oo in hore soo qaadanay in raadina cos theta maxaa lagu heli jiray please waxa la cos theta waxa lagu helaa cos theta saddex qaacido lahaa inagu laakiin waxaynu qaadanaynaa a divided by r oo waxaan hore soo qaadanay qiimaha eedo iyo qiimaha egasta ayaa isku mid ah dhidibka horsanta line-ka marka waxaan oranaa cos theta wuxuu inoo soo baxayaa qiimihii eedo waa imisa waa numberkan haysan gifankeena waa 1 ayaan ku bedelanayaa qiimihii r-tuna waa imisa waa radical 2 ayaan haystaa divided by radical 2 waxaan hore soo qaadanay cosku goormuha 1 over radical 2 goormuha waa special angle intana waxay u sii dhigmi kartaa inay noqonayso radical 2 divided by 2 oo haddii dhinac kasta aan ku dhufto radical 2 waxa soo bixi doona radical 2 divided by 2 waana special angle waxa loo yaqaanay special angle iski way waa special angle waxa gal special oo angle maxay noqonaysaa haddaba waxaynu soo qaadanay theta goormintan waxa theta inta waxay noqonaysay markay tahay angle 45 degree haday ku cabiran tahay in degree form way haday ku cabiran tahay in degree form 45 markuu cosku yahay ayaa wuxuu dhimayaa radical 2 divided by 2 ayuu dhimayaa haduu ku cabiran yahay theta haduu ku cabiran in rad formna waxay noqonaysaa by loo qaybiyay 4 waa markay ku qaban tahay in radian waa markay u qoran tahay in radian form ay u qoran tahay marka inuu keeno isticmaalna badanka marka la mariyo complex qaybaha noocan oo kala badanka waxa la adeegsadaa radian formka kaana waa la adeegsan karaa labadaba laakiin waxaanu adeegsanaa radian formka marka xagasha noocaas markaan haysano ee by 4 oo radian form ku cabiran oo u dhigmisa 45 degree oo special angle u dhigmisa radical 2 divided by 2 ayaa waxaynu eeginaa equation keenaasi waaxdee u dhacaya quarantige ayaan ka helaynaa maxay isleegtaaynu haysano waxaan eeginaa maxay inaynu qaybtaa soo saarno halkay dhacayso marka waxaan haystaa formkii baan soo noqonaynaa waxaan haystaa qiimaha bayda oo noqonaysa by 4 ama by loo qaybiyay 4 inta ayanu bedelnaa bal waaxda dhacayso marka waxaan eegi doonaa balqaabka u sawirmayso haddaba waxaan haystaa arday theta waxaan haystaa dad soo qoro theta waxaan haystaa by loo qaybiyay 4 baan haystaa waxaan eegayaa waaxdu dhacayo Cartesian balankeena sidoo buuha
kaas waa x kaasna waa y waxaad ka fikirtaa isleegtan haysana waa sidan waxaan haystaa 1 minus I baan haystaa waanaga iniri qiimaha hore x uu taagan yahay waa horsanta line x soo plus 1 istaagban meelahaas ka soo qaadanay imagination keena ama estimation qaadanayno halkana waxa horgaleen oo ah -1 waayo -1 ina waa meelahan like this hagaasa -1 noqonays labada dhidib baan isku xidhaya ega soo balaaswana iyo waydo -1 marka eeg kaas waxa first quarantine ayuha kaasna waa second quarantine kaasna waa third quarantine kaasna wuxuu noqonayaa fourth quarantine ayuu noqonayaa marka qiimahan sana sleegta waxay dhacaysaa sleegtan waxay dhacaysaa waaxda afraad ayay dhacaysaa marka waaxda afraad marka xagasha reference-keeda la raadin jiray waxa leedahay xagashu waxay soo baxaysaa ama reference-keedu waxa lagu helayaa 2 by haye 2 by laga jaray xagashan haysanade oo reference-keeda raadinaysa hadii ha sababtu waa maxayna waxa leedahay tiitaana haysana ayaa lies wuxuu dhacayaa in the forest quarantine ay dhacaysaa waaxdani waxay dhacaysaa waaxda afraad ay dhacaysaa marka waaxda afraad marka reference-keeda la raadinayo 360 baa laga jaraa xagasha lagu siiyo xagasha la siiyo waxay noqonaysaa by 4 bay noqonaysaa marka waan ku bedelinaa waxaan oranaa xagasha waxay noo soo baxaysaa 2 by laga jaray by loo qaybiyay 4 arday halka waxaan haysanaa xisaab fractiona oo u dhaxayso calaamada ka jarto kadib waxa la raadinayaa LCM ka find the LCM marka waxaan oranayaa marka LCM ka raadiyo waa 4 baan u qaybinayaa 1ka waa 4 times 2 by halka waxay noo soo baxaysaa 8 by baa soo baxaysa hadii aan 4 u qaybiyo 4na waxay noqonaysaa minus by marka subtract wala kala jaraya oo waxaan haysanaa 8 by minus by waxay noo soo baxaysaa 7 by divided by 4 marka waxaan haysanaa tiitaheeni aynu u baahnayn waxaan haysanaa 7 by divided by 4 hadaba waxaan raadinayaa imaka habkan isticmaalna waa polar form Soma waxaan adeegsanaa isleegteen waxay ahay sad power n ayaa waxay u dhigantaa sad power n ayaa waxay u dhigantaa haye r power n inta baad oranaysaa cos n times theta haye plus I sin n times theta haye qows ku soo xidh qaacidan aysan oo tablis taas la adeegsanaya marka power form kan aysan dhimo farisi yaramka marka waxaan haysanaa thetaheeni 7 by divided by 4 baan haystaa su'aasha la ii diray waa maxay waa sad power 4 halka inteen taala waa maxay waa power 4 marka inteeni ayaa waxay noo noqonaysaa maanta la inoo diray power 4 marka bartay taalo power 4 ko waa barta sad ay noo taale noqonaysaa marka waan ku soo bedelinaya waxaan oranayaa sad power 4 oo barta inta taalo where's n baa oranaya where's n is equal to 4 halka inta taalo waa power 4 su'aasha noo diray waxaan haystaa r-tina radical 2 aan haystaa oo radius kiya this is radical 2 this is radius waa su'aasha radius noo soo baxday jawaabteedii n-tuna waa power 4 ku jibaaran 4 waxa la cos n-taana waan bedelayaa please n-taasi waa power keeni oo waxay noqonaysaa 4 times theta-hana bedel theta-haasna waxay noo soo baxay 7 by divided by 4 bay noqonaysaa ku bedelaynta waa 7 by divided by 4 ma ku bedelanaya plus I baan oranaya plus I sin ayaan soo qoraya waxaynu wixii inteena waa powerkii oo imisa inoo ha sad power 4 powerkii waa 4 day waa 4 times theta-na waa imisa waa by 7 by divided by 4 way waa 7 by divided by 4 intaasan qoys ku soo xidhaya maxaa isku san yahay doonka arkay maxaa isla baxaya waxa isla baxaya equation keena eeg 4ka iyo 4kaas way isku sanaya way isu qaybsan yihiin labada hoos waa isla baxeen waxa kale isla baxaya 4ka iyo 4ka intanna power form baan ka dhiginaayo waan fudaydinaynaa waxaan haystaa haddaad aragtaan radical 2 wuxuu u dhigmaa 2 power half ayuu u dhigmayaa 2 power half maxaa ku sii jibaaran waxa ku sii jibaaran 4 kina ku jibaaraya
waxa la power whole 4 marka power kan ku dhacaya labaas ku dhacaya 1 times 4 labaas ras ku dhacaya waxay noqonaysaa 2 ku jibaaran 4 loo qaybiyo 2 oo the 4 times 1 baa la oranaya divided by 2 ina waa power labada power su qaybi waxay noo soo baxaya 2 power 2 the 2 power 2 nimse noqonaysaa 4 marka hadaad aragto radical whole power 4 waxay noo soo baxaysaa 4 inta ku soo bedelanka waxa leedahay third power 4 ayaa inoo soo baxaysaa intaas waxay noo soo baxday maxay 4 haye intuan oraya intana sidoo soo qaado waxaan haystaa cos 7 by waxaan haystaa cos 7 by plus I sin 7 by ayaan haysanaa inta ayaan qiimeynaa hadaba please 7 by daasi waa real form buu qoray waxaan ka dhigi karnaa in degree form marka in degree form marka laga dhigayo please marka in degree form laga dhigayo waxaan soo dhiganay 7 by marka loo bedelayo degree form 180 baa lagu dhufan jiray bayna waa loo qaybin jiray marka haddii aan bayda u jaro 7 ma ku dhufanaya 180 waa 1260 degree baan sanaa waxa gal uyuja waxa gal aad weyn marka waxa la eegaya cabirkani how many revolution ba ku jira imse revolution ayaa ku jira 1260 ka waxa leedahay halka revolution 360 buu ahaa halka wareeg one revolution waa 360 waxa leedahay minus 3 times 360 ayaan ku dhufanaya oo waxa loo jeedaa 3 revolution ayaan eegaya intay noqoto waxay noqotay 1260 degree minus 180 baa xasan noqonaysa oo 3 revolution waxa ku jira 180 baa ku jira marka labada aan kala jaro waxay soo bixi doona 180 marka hore waxaan u soo aragnay cos 180 inuu yahay -1 cos 180 waa -1 sin 180 na wuxuu special galay sin 180 na waa 0 marka bartay taala 7 by waxay u dhigmaysaa 180 ma ku bedelo waxaan haystaa third power 4 ayaa inoo leeg 4 into the cos 180 degree ayaan ku bedelanaya oo u dhiganta macni plus I sin 180 degree marka simplify inta wala garanaya maxay noqonaysaa waxaan haystaa third power 4 ayaan haysanaa 4 into cos 180 waa -1 plus sin 180 na waa 0 marka waa 0 times I deni haddaba 4 ku orfo remove the break waxay noo soo baxaya third power 4 squat waa -4 plus 0 I intan wax macno sameynaysa ma jirto third power 4 squat waxaan haystaa -4 in answer keeni hore markaan haysanay rectangular formka jawaabtan waxay soo baxday -4 third power 4 by no leg -4 imakana markaan adeegsaday rectangular formka ma ahay polar formki jawaabtan waxay soo baxday -4 marka habkii loo yaqaanay polar formka iyo habkii loo yaqaanay rectangular formka inkastoo ay kala duwan habka la maraya haddana jawaabtoodu waa same oo wuxuu soo baxay -4 kana wuxuu soo baxay -4 marka insha Allah halka ay ku joojin doonaa maanta wixii ka dambeeyay xasuusi ama qaad doona insha Allah example kale ka badan halka ay ku joojin insha Allah maanta waa in salaamaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh